soo dhawaada halkan waa Somali Bitcoin waxaan ka wada hadlaynaa warka ka hadlaya dhinaca cryptocurrency-ga iyo Bitcoin-ka. Haddaad channelka ku cusub tahay, welcome baad tahay. Like iyo subscribe taabo si qof kale uga faa'iidaysan karo information-kan bixinayno. Waxaan waa education iyo waxbarasho qura. Ka wada hadlaynaa waxay marka hore Ethereum kuna maqlay weyne maalin kasta Korea laga wada sheekaysanayo waxay Ethereum waka. Ethereum waxa weeye waa blockchain isaguna waa sida isaga Bitcoin ku isku dhow yihiin. Marka intaan gelin xagga Bitcoin xagga ka bilaabmay Ethereum aan tuso xaggi marka hore markuu blogiisi wadin ka arka wuxuu ka bilaabmay 27 bib ka bilaabmay maaragta marka hoostu ku saablaamay marka waxaan u bilaabmay wuxuu bilaabmay ilaa wuxuu soconayay bilaabmay ilaa iyo 2015 wadin ka arka dhinaca bidixda xagga topka hadda eegtaan marka Ethereum meel badan buu saamaray markuu ugu sareeyay 3000 wuxuu marayay wadinkan tusay haddana 3000 iyo 600 buu marayay markuu ugu hooseeyay halkan oo inta suuqa marka waa technology software system oo lagu sameeyo development-ka xagga app-ka xagga marka qofka website u sameynaysid waxa soo muuqusaya marka imikan bal waxaan tusayaa imikan wax laga soo qoro tusayaa marka waan ka hadlaynaa bal xagu ka bilaabmayo yaa sameeyay iyo wuxuu yahay waan kan arkaa ninka maskaxda ka dambeeya Ethereum ninkan yare waa ninkan oo la Vitalik Buterin isagoo yar buu bilaabay Ethereum oo design gareeyay xagga technology-ga Ethereum marka waan Ruushka ku dhashay laakiin wuxuu soo gooray Canada isagoo yar marka nin wuxuu dropout buu ahaa jaamacadda uu dhameyn waayay marka maantana waa kaas waa Milton billionaire marka isagoo dropout jaamacaddii aan dhameyn buu technology-ga galay oo sameeyay Ethereum markuu maqlay Bitcoin inuu socoto oo Bitcoin inuu yahay cryptocurrency weyn soo socda buu isna dabagalay wuxuu design gareeyay software-ka la yiraahdo Ethereum marka hadda doonta Wikipedia ka daawan kartaan wax kasta ka akhri kartaan laakiin ninkan waa nin aqli leh oo fikray marka sheegayna qof kasta wax kasta inuu doonayo inuu sameyn karo adduunkan oo jecel yahay marka maantana waa ka markaan ayno summary-gu marka waxa lagu jeedaa waxay marka waxaan Ethereum waxay marka Ethereum waxa lagu leeyahay Ethereum is a technology for built apps marka Ethereum waxa lagu talagalay system app-ka lagu sameeyo assets transaction communication without being controlled by central authority marka central authority waa dadka wax ilaaliya dowladda iyo gobolka iyaga wax ilaaliya marka iyagoo la baahaneen baad isticmaali kartaa Ethereum oo technology-giisa isticmaali kartaa marka waxa inta badan isticmaala combination waaweyn markay doonayaan inay app-ka saaraan markay doonayaan inay database-ka information-ka inay wax kale dadka waxaan doonayaan ogaadaan inay ku shubaan oo inay geliyaan marka wuxuu noqday marka system-kan Ethereum marka wuxuu noqday blockchain system weyn buu noqday markii dambe wuu koray wuu weynaaday marka dadka u baahan isticmaalaan marka waana lacag bixisaa marka isticmaalaysid marka xagaas soo ninkan vitamin la yiraahdo lacagtiska sameeyay markaas xagaas marka wixii la baahnaday wixii arkeen inuu waxaan shaqeynayo inuu systemku shaqeynayo markaasay Bitcoin iyo xagaas marka bay ugu daydeen dhinaca Bitcoin oo kale laakiin Ethereum Bitcoin wuxuu kaga bedelayay Bitcoin waa gold asset waa asset oo waxa weeye wax saa laguma falo waxba saa material laakiin isagu wax weeye waa value waa wax lacagtu ay qoori karto marka aan adana lacagta ku ilaalinaya marka waa asset marna saru ka yaman hoos buu kacaya laakiin lacagta markasta waa lacag kugu jirta laakiin Ethereum dhinaca kale waxa weeye waa system waa technology marka dad waxa baahantiin samaysid bad galaysaa marka waad iibsanaysaa markaad galaysaa markaad wax doonto xagga aad ka sameynaysaa marka waxaan oo dhan waxa ku yeelan Coinbase marka qof waxaad noqon kartaa shareholder marka share bad bixinaysaa sharekan wuxuu ku xiriyay inta la siinayo marka kadib bad
xagaas markaa dee sheerka waxagaas ugu kordhayaa amba soo hoos buu dhacayaa laakiin financial advice ma haddana waa adiga kugu xiran tahay. It's not financial advice, it's just a form of education. Marka xaggan waxaan ka wada hadlaynaa education cidna anigu lama talinayo xiibsee. Marka waa taa. Marka waxaan ku noqonnaa chatkan ku noqonnaa markaas haddana tusiyaalka haddaadan taabin like iyo subscribe na taabo so insha Allah qof kale waxaan information ugu faa'iideysan karo haddana. Marka wanagan aragna waa tan wanaga galay chatkii Coinbase wanaga galay haddana. Marka wadinka arka Ethereum price-kii maanta taasoo maraya 1347 buu maraya. Marka waata markii highest-ka ugu sareeya waxa sanadkii hore bay ahayd waxa 3647 buu ahaa. Markii uu bilaamay intaasoo ka bilaamay oo 2000 aan qabano 2015 wadinka arka marka waxa 27 buu ahaa. Marka wadiga arka in badan buu soo socday. Marka share badan baa imka iibsaday oo waxaas markaa lacagta inta imka u gaadhay aragno intaan u gaadhay. Marka maanta wax kala maaha maanta intaas buu kacay marka 56% buu kacay aragtaana waata. Marka waxaan wax koriyo oo la arko oo beena maaha waana system oo la isticmaali doono mustaqbalka xaga la sheegay oo wax aad u koraya waana technology cusub qof kasta ka dhaxgali karo qofkii doonaya inuu macaamiil la noqdo oo doonaya inuu isticmaalo amba inuu doonaya inuu investor noqdo uu haysan karo intuu isticmaalo amba Coinbase amba Binance kii doonayaba. Laakiin anagu san sheegay anagu financial advice maaha. We don't do any financial advice for education purposes. Marka si dadku marka so people can wake up so dadku si u kacaan oo marka ay waxaan faa'iideystaan ka socda adduunka. Marka sidii Ethereum wuxuu baahan regulation u baahan waxa baantay in dawladdu ictiraafto laakiin wasiimka soo socoto imika mar la wala ictiraafaya because waxaan doonada kan arka waxaan intuu ka yimid intaas kaasoo ka bilaabmay intaas soo maraya. Marka waxaan wax korayo oo dadku shares badan ka iibsanayaan. Marka maanta laakiin intaas soo marayaan la khaldamin laakiin marka adaa leego chatkii shalay adaa leego last week adaa leego waxa 1360 ugu sareysay 850 way ugu hoosisay. Marka sare iyo hoos buu dhacayaa. Marka waxa ku xirnaa economiga marka xagga economiga marayo imika dagaal iyo waxba socda iyo wax kasta qalbi garoobin laakiin imika dawada aragtaan uu soo noolaaday maanta wuu kacay ma aragta. Marka waxaan waxa weeye waxa u baahantay education u baahantay qofka waxaan ogaado waxa u baahantay qofka inuu buugaagta akhriyo inuu online ka akhriyo waxaan dadka kale kale inuu dhageysto halkan jooga inuu information kooda ka wardoono. Marka waxaan wax laga baxsan kara ma wax mustaqbalka soo socda. Marka qofkii doonaya IT computerka galaya Ethereum aad buu caawin karaa marka iyo technology-giisa duu barto. Marka maanta xagaasna ku gabagabeynayna laakiin waxaan waa wax u baahan inay education iyo information u baahan marka haddana waa taa laakiin cryptocurrency-ga dhan wuu korayaaba. Cryptocurrency-ga dhan marka laga sheekeeyo wuu korayaaba. Imika sanadkii ku hor waan ka arkaa markii uu sareeyay intaas soo marayay markuu economic xumaad hoos buu dhacay laakiin imika wada aragtayo uu soo noolaaday oo uu saa kacaya haddana sida imika la arko. Marka waxaan maaha maalin laba kuma taajiraysid waxa weeye waa investment waa maalgelin bay Soomaalidu ku mahmahdaa. Marka waanaad maashi gelisaa adeeg ku xiranta dhinacaaga. Marka waa taa marka halkaas muddo ku joojinayna link baan ku soo qorayaa aad ka akhrisan kartaan dadkiina u baahan si doonayaan oo akhristo in akhrisataan kala noqda. Marka like iyo subscribe taabta si qofkan information ugu faa'iideysan karo maanta aan meesha keenay haye waa salaamintihiin waa Somali Bitcoin.